Assalaamu calaykum jaalayaal, soo dhowaada. Anigu waa Cabdalla Cali, halkanna waa Smooth English System. Qaybta podcastgan waxaan ku soo gudbin doonaa qayb ama hal podcast ku turjuman laba luuqadood, Soomaali iyo English. Haddaa jeceshahay inaad ku dhegaysato wax English, waa okay, waa diyaar. Haddii aadan fahmaynin Englishkana sidaasi la mid ah, waxaan kuu diyaarinay podcast af Soomaali ah aad fahmi karto. Soo dhowaada mar koowaad iyo mar labaad. Waxaan zaid ugu faraxsanahay jaalayaal inaan maanta idinla sheergareeyo ciwaankan oo ah mentality. Kulankeena maanta waxaan si fiican diiradda u saari doonaa 4 su'aalood oo muhiim ah. Midda koowaada waxay tahay waa maxay mentality ama maskax. Midda labaada waxay tahay dhibka ka haysta ardadeena Soomaaliyeed iyo sida ay ula dhibaatoonayaan maskax ama mentalityga. Midda saddexaad aan wax iska weydiin doonaba waxay noqon doontaa ma la dhisaa maskaxda mise waa loo dhashaa. Mentalityga wax la dhisamayaa mise waa wax loo dhasho. Marka intaasoo dhan aan ka soo wada hadalno ayaa waxaan gunaanadkii ka hadli doonaa ama sida loo dhiso maskax adag, weliba tallaabo tallaabo. Sidee loo dhisaa mentality tallaabo tallaabo. Ka hor inta aynan ka hadlin sida loo barto English, ka hor inta aynan u dhaadhicin xeerarka naxwaha, erayada iyo hadalka, waa inaan marka hore ka hadalnaa maskaxda. Sababta waxay tahay maskaxdu waa aas-aaska. Haddii maskaxdu sax ahayn, wax kale ma shaqeeyaan. Laakiin haddii maskaxdaadu toosan tahay, waxaad gaari kartaa meel fog, xitaa haddii aad ka bilowdo meel eber ah. Haddii aan si sahlan u sheego, maskaxdaadu waa habfakarkaaga. Waa sidaad u wajahdo dhibaatooyinka, khaldaadka iyo guulaha. Waa sidaad uga fakarto marka aad hilmaanto eray, marka uu qof kale kuugu qoslo, weliba marka aad English baranaysid. Tusaale, adiga ayaa waxaa samaysay qaldaad ama pronunciation-kiyaa wax ka qaladay ama wax baad samaysay, markaasaa qof kale kuugu qoslay. Marka qof kale kuugu qoslo ama marka aad doonayso inaad hadasho laakiin maskaxdaadu istaagto, waa sidaad u tababaran tahay. Waa sida maskaxdaada gudaha ah ay u tababaran tahay. Dad badan way isdhiibaan markay wax ku adkaadaan, qaarna way sii wadaan xitaa markay dhibaato la kulmaan. Farqiga ma aha garaad, farqiga dhabta ah waa maskaxda. Tusaale, 2 arday isku kalaas ah, isku macallin ah, isku kursi fariisto ayaa waxaa ku adkaanaya su'aal. Marka su'aasha ay ku adkaato, arday wuxuu dhahayaa warniyo waxaan kama shaqayn kari, waxaan ma fahmi kari, waxaan ma qaban kari. Halka kan kale uu dhahayo haa way adag tahay, laakiin macallinkiyaa iga rabo oo waa isku dhibaaya. Haa way adag tahay, laakiin waa isku dayayaa. Ama waa hal howl laakiin 2 maskax. Midna hadda ayuu joojin, halka kan kale marka uu ku laabto mar kale uu ka gulgaarayo ama uu fahmayaba. Tusaale yaroo u dhowkaas, wiil asxaabna haba maalin exercise samaynaynay. Wuxuu igu dhahay muruqa ayaa i xanuunayo. Markaas baan waxaa dhahay niyow saaxiib saas ma aha muruqa i xanuunayo hadhihine muruqaygii baa dhismaayo ama muruqaygii baa ii adkaanaya dheh. Ilaa meesha waxa uu joogo waa in uu isdhisaa ama muruqiisa uu adkeeyaa. Sidaasi la mid ah marka haddii uu dhaho waa xanuunoyaa ama muruqii ah i xanuunayo, waxay u badan tahay 99% inuu joojiyo. Laakiin ka waran haddii uu u arko muruqaas xanuunkaasi markaas yare uu dareemayo inuu yahay xanuunkii uu ku adkaan lahaa, xanuunkii uu ku dhismi lahaa, wuu wadaya. Mentalityga laga hadlaya marka waa shiftigaasi yar aad ka soo wareejinaysid dhankan u wareejinaysid dhanka kale. Ma fahantaa? Mentalityga lagu sheegayo waa wax si qof uu u arkayo si sidaasi u dhow ay ka yara duwan inaa u arkaa guushaadana ay ku gaarsiisaa. Waxaan rabaa saaxiib inaan si toosa kuula hadlo. Mararka qaar waxaan arkaa arday ama dad dhahayo waan ka baqaa inaan khaldamo, waxaan ka baqaa inaan khalad sameeyo, ama waan fahmaa laakiin kuma hadli karo, ama ma dhahaan laakiin gudahooda ay ka sheekaysanayaanoo waxay isdhahayaan dadka kale say arki doonaan haddaan waxaan khaldo ama haddaan waxaan si qaldan ah ugu dhawaaqo ama aan si qaldan ah unu isticmaalo. Laga yaabay inaad adigu ka mid tahay dadkaas ama aad aragtay ama xaaladaasi ama marxaladaasi aad soo martay ama hadda aad ku jirtid. Mararka qaar waan iska qosolnaa marka qof erey khaldo, waxaan iska dhignaa dad kale, laakiin dhab ahaantii waan naxnaa. Maskaxdaas ba'an waa tan naga hor istaagta horumar. Laakiin marka maskaxdaadu xooggan tahay, codkaagu wuu furmaa, jirkaagu wuu dhiiradaa. Dhib maaha inaad khalad samayso, waayo waxaa tahay qof wax baranaya.
saaxiib kalsoonidu looma dhasho waa la bartaa waa la training gareeyaa waa lagu dadaalaa tusaale haddaa rabto inaad dad hortooda ka hadasho waa qasab marka hore inaad soo barataa inaad isdhistaa inaad samaysaa wixii loo baahnay si aad dad hortooda ah uga hadasho kalsoonida waxay tahay marka mar walba waa natiijada markaa arkaysid qof kalsooni leh waa natiijo maahan inuu iska yahay kalsooni ama inuu iska leeyahay kalsoonidaas laakiin waa wax uu ka soo shaqeeyay wax uu waqti soo geliyey ee uu bartay sidaa daraaddeed su-aashu maaha ma kalsooni baan leeyahay ee su-aasha saxda ahi waa miyaan maalin kasta tababaraya maskaxdayda si aan kalsooni u helo si aan English ugu hadlo si aan wax cusub aan u barto marka aad ku celceliso wax yar maskaxda xoog bay yeelataa marka aad ku celceliso wax yar maskaxdaadu xoog bay yeelataa marka aad tiraahdo hal jumlad maalin kasta guul ayaan sameynaya waan guuleysanaya laakiin haddii aad sugayso inuu qofku amaano ama aad sugayso ay iska bilowbataba ama ay iska dhacdaba weligay iman mayso sidaasi la mid ah waxaan kuu sheegayaa kalsoonidu waa la kasbadaa waa la bartaa looma dhasho wax hal habeen ku imaanayana maaha sidaasi la mid ah maskaxduna waa sidaasi la mid ah haddii aad training garayso aad sidaa rabtid aad u isticmaasho waa sidii laga rabay laakiin ma jirto wax si caadi ah iskaga imaanayo haddaan kuu sheego sidee lagu dhisaa maskax guul leh ama positive mentality ama successful mentality maaha sheeko waa ficil waxaan rabaa in aad samayso wax walbo aan kugu sheegi doono halkan si aad u tixgeliso aadna uga dhabayso waxaad dhegaysatay maanta aadna uga guulgaartid waxaad rabtid okay marka koowaad waxaa u baahan tahay inaad qortaa sababta aad u baranaysid Englishka why the reason okay maxaad rabtaa maxaad u baranaysaa English maxaa kugu kalifayo mustaqbal fiican miya waxbarasho miya adaa og waxaad rabtid warqad u soo qaado ha noqdaan 5 ha noqdaan 10 qor ayagoo dhan talaabada labaad aad qaadaysid baa waxay tahay ogolow dhib iyo jahwareer confusion ogolow inaad wareertid waa okay inaad wax qaladid waa okay tusaale markaa wax qaldaysid dareen fiican maaha dareen farxadeed maaha dareen lagu raaxaysto maaha laakiin waxa u baahan tahay inaad dareentid waa qasab sababta waxay tahay adoonan dareemin waxaas ma gaaraysid meeshaas sidaas la mid ah inaad wax qaladaa waa okay aadan sidaa rabtid wax aadan u helaynin waa okay wax walbo waqti ay leeyihiin ku dadaal ka shaqee waad gaari midda saddexaad waxay tahay maskax tababar maalin walba maskaxdaada tababar maskaxdu waa muruq waa la dhisaa mentality haddaad maqasho waa muruq la dhiso subax kasta ku celceli wax walba waan awoodaa waan samayn karaa camal ma fahamtaa waa la tababaraa maskaxdu tusaale mararka qaar waxaad arkaysaa dad dhahaya waxaan gaaraynaa horumar sababta waxay tahay maskaxdu haddii waxaan lagu celceliyo marka hore waa hadal caadi ah laakiin kadib haddii lagu celceliyo way aaminaysaa hadday aaminto hadal ay ahayd hadalkii wuxuu isu bedelay aaminaad markaad aamintay kadib waad ku dhaqaaqday markaad ku dhaqaaqday kadibna waxaad rabta waa gaartay waa intaas markaad si dhab ah u aaminsan tahay maskaxdaadu way bedelmaysaa okay midda afraada waxay tahay ilaali maskaxdaada your mental space wuxuu yahay dadka qaara waxaa jiro oo ah negative dadka qaara waxay ka hadlaan wax aanan jirin dadka qaara waxay ka xun yihiin horumarkaaga dadka qaara waxay ka xun yihiin waxa sameynaysid marka adi ahaan haddii aad mar walba aad dhegaysato qof ku liidaya ama waxa aad sheegaysid aanan aaminsanayn ee maxayda wax kale u arkaa way ku saameynayaan way kula harayaan negative lama dhegaysto xagga iga dhig English waad baran kartaa okay waan baran karaa maskaxdaaday dhistaa waa positive laakiin English lama baran karo Soomaali adoo joogo English kuma hadli kartid ma sameyn kartid waxaas ganacsiga ma samayn kartid waa negative at the end of the day markaad meesha ka tagto aad gurigaaga tagto ama aad jiifato ayaa wixii dib ay kugu soo laalaabanayaan markaas waxaa is leedahay niyo qofkan waxaan dhahay waxa ka jiro muxuu u dhaxasaas sabab maxaan u malaynayaa inay waxaasi si uun ay wax ka yihiin waxa la diidayaa waxay tahay marka maskaxdaada in programkii hore ugu jiray in looga bedelo haddii loogu celiyo tusaale waxaa jirtay sheeko maalin bay ahaydoo wiil baa waxay go'aansadeen dad asxaabtiisa inay ka waalaan markaas wuu soo kacay waxaa ka hor yimid waa loo tashtay ilaa iyo adi qof walba wuxuu istaagay miil markaasaa midkii hore ugu soo horeeyay baa salaamay wuxuu dhahay saaxiib seeta waa fiicanahay nabad alxamdulillaah markaasaa waxaa la dhahaa niyow maanta maxaa kaa qaldanne oo wuxuu dhahaa maxaa iga qaldan bisniyow maanta caadi ma tihiday adoo dhan si kala tahay camal wuu ka tagay kii koowaad kii labaada haddana arkay
isla sidii si ka duwan uu u dhahay isla wixii camala wiilkii asoo yaaban baa haddana midkii saddexaad baa ka hor yimid asi markaa dadka maa waalan mise anigaa waalan uu isleeyahay isla kii afaraadu sidii camal dhahay wiilkii meeshii u socday immediately ma aadin wuu ka soo laabtay sababtaa waxay tahay maskaxdiisaa la qabsaday asoo labisan caafimaad qabo soo qubaystay diyaarsana waxaa la leeyahay niyo maanta adoo dhan si kala u muuqata markaas wuxuu isweydiinayaa seen u muuqdaa maxaa waay waxay dadkan sheegayaan marka wiilkii wuxuu u dambeeyey ugu dambayn inuu gurigooda tagay asoo qol ku jiraa loo tagay ma fahmino marka mararka qaar waa halis in qof negative ah wax ka dhegaysatid way ku saamayne way kula fariisane 100% waxaa laga rabaa marka in wax maskaxdaada galaya aad kantaroshid caqligaa leedahay waxa aaminsan tahay waxa aad jeceshahay waxa aad rabto inaad guul ka gaartid okay waaye ma fahamtaa laakiin haddii waxaasi ay yihiin wax aana shaqaynayn haba u dhowaan maskaxdaada ka qufulo ka soco qofaa ku dhahayo marka wax ma baran kartid waxaas ma gaari kartid waxaasaa tahay iyo waxaasaa tahay okay midda kale ugu dambaysaa waxay tahay hadal maalin walba ama practice garee maalin walba maxaan ka wadaa practice garee tusaale waxaad rabtaa inaad maskaxdaada aad dhisto aad dhahdo mentality language learning mentality inaad dhistaa rabtaa waxaad leedahay marka maalin walba ku celceli tusaale hal jumlad ama hal warqada waxaad ku qoranaysaa waan ku hadli karaa luuqadaas iyo luuqadaas waan ku hadli karaa luuqadaas iyo luuqadaas marka asaas ugu celcelinaysid maskaxda waad programinaysaa isla programkii sideedii ay u qaadanaysaa luuqadii emotionkaaga dareenkaaga wuu soo dhaweynayaa dareenkaaga wuu aqbalaya caqligaagii wuu aqbalaya kadibna waa sidaa rabtay tusaale qofaa jiro Stephen Kaufman la dhaho wuxuu ku hadlaa 20 luuqadood luuqadaha caalamka aaminsan tahay inay adag yihiin oo dhan wuu ku hadlaa English wuu u dhashay oo waa luuqadiisa koowaad wuxuu ku hadlaa Japan wuxuu ku hadlaa Chinese wuxuu ku hadlaa Russia luuqadahoo dhan ma rabtaa inaad ogaato mentalitygiisa wuxuu aaminsan yahay language learning is easy and effortless luuqad marka la baranayo waa wax fudud wuuna bartaa 20 luuqadood ayuu ku hadlaa ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gunaanadkii iyo gabagabadii podcastgeena maanta waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iiday kulanti dambe oo xiiso leh maca salaama